xisbiyada mucaaradka ka jira Somaliland ayaa kulan saacada qaatay isla markaasina ay warbaahintu dibad joog ka ahayd oo uga qabsoomay xarunta dhexe xisbiga UCUD ku leeyahay magaalada Hargeysa markii uu kulankaasi soo dhamaaday amaba uu soo idlaaday waxa warbaahinta si wada jira u la hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale Engineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCUD waxay labada gudoomiye ay ka deyriyeen xaaladda uu haatan dalku marayo waxaanay sheegeen in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka talaabsaday shuruucdii dalka u yaalay isagoona dhagaha ka furaystay talooyin ay u geeyeen xisbiyada mucaaradka ee ka jira Somaliland waxaana hadalka ku horeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro maanta waxa muuqata in Muuse Biixi uu xuub siibtay kaligii taliye cagtana saaray wadadii hore loo eeday ee qeyrkii iyo jannadii dhagarta ku aanka ahaa ay mareen waxa muuqata inuu burburiyay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayay isla markaana tacab badani shacbigan ka galay waxa muuqata inuu mijaxaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda Somaliland oo maanta ku jirta jiha wareer siyaasadeed waxa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo igmaday isla markaana uu si badheedh ah iyo ku tumasho u jabiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Somaliland ee marxaladan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sanadkan gudihiisa 2020 maadaama uu Muuse ku fashilmay hogaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horeeyo golaha wakiilada isla sanadkan 2020 maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan 10 sanadood in sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sanadkan aynu ku jirro 2020 waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka wararka imaatinka ee ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog warramin wixii dhacay iyo wax hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dawladda Itoobiya oo saxaafaddana soo waristay wafdi ka yimid dalka Itoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay sidii jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba lama wadaagin iyo wixii jawaab la siiyay toona axsaabta qaranka iyo shacbiga Somaliland waxa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer Somaliland oo uu ka tagay Muuse uu ka tagay madaxnimo iyo sharci uu ka tagay hadda waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tagay waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharci ku kala soconay madaxweyne noqon maayo madaxweyne Muuse Biixi buu noqonaya hadduu ilaa UCUD iyo fuudwan baabiinaya oo sharci aan waqtigaan man geenaya oo shaar baan tolanaya waxaan leeyahay madaxweynuhu ma tid hadduu bisha gudaheeda timeska la siiyay ilaa bisha 10keeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuuru qaadanayaan ma jirto cashuuru wuxuu moodayay inuu abiy bixiyo moodayay cashuur shacabka Soomaaliya bixiyay kaladan ka jaraya waxaan ka jarnaa lacagta qaadid ee khaayinka ku tahay waliba وخائن العظمى وي هيا لغا حشمون
maanta reeru dabada geliyaan ma jirto reerkoodu wuu arkay Soomaaliland way aragtay adduunku wuu arkay waa khaain afkiisa urkiisa lahayn horaan u sheeg marka cidka soo dumiyo anaga afweynaha nagu noqdo dooni afweynaan rudnay waa lagu ridinaa haddaad dalkan abuse kaysa waa ku ridinaa adoo qaawan wadaxaysa wallaahi billah Aydruus Maxamed Caynaan goobjoog magaalada Hargeysa.